tababar la xiriira ilaalinta xuquuqul insaanka iyo ka hortagga askaraynta carruurta ayay wasaaradda difaaca Soomaaliya ku soo gabagabaysay Muqdisho waxaana xiritaanka seminaarkan ka soo qayb galay wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ku-xigeenka madaxa hoggaanka tababarada iyo wacyigelinta ciidanka xoogga dalka saraakiil ka socotay midowga Yurub iyo marti sharaf kale tababarkan oo iska kaashanayeen wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka xoogga dalka iyo midowga Yurub dawladda Ingiriiska ayaa waxaa ka faa'iideystay saraakiil xigeenno iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ka shaqeynaya barnaamijka isku xirka ciidanka iyo bulshada ee SIMIC ku-xigeenka madaxa hoggaanka tababarada iyo wacyigelinta xoogga dalka gaashaanle sare Asad Cabdullaahi oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa xusay in ay muhiim ay yihiin tababarada noocan oo kala ah وستان مهمة حلقة لو باقيها كنا نار عمد الدارنا يا أرضي وستان هنا جالسيات لها لو باقيها marka waxaan codsanaynaa in garab noolagu siiyo oo kow la tixgeliyo baahiyaha annaga aan qabno runtii waxay ka dambeyn doonaa wasiirka soo dhaweynayna maasha Allah xigeenka tababarada ee midowga Yurub Cornel Hannes Granland ayaa sheegay in kooxdii tababarada qaadatay looga baahan yahay in ay uga faa'iideeyaan saaxiibadooda cilmiga ay barteen wasiir dawlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane Maxamed Cali Xagaa oo ugu dambeyn soo xiray tababarka ayaa kaga mahad celiyay saaxiibada caalamka gaar ahaan midowga Yurub taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya xafladan oo tababarkan oo socday muddo 16 maalmood oo lagu baranayay kahortagga askaraynta carruurta iyo waxyaabo kale fara badan runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in ay ka faa'iideysteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo iyaguna gaarsiin doona ciidanka qaybihiisa kala duwan iyo deegaanada kala duwan ee dalka u degan yihiin waxaan rajaynaynaa kula buuxinaynaa in wixii ay barteen ay gaarsiiyaan saaxiibadooda kale waxaan marar badan iyo mar kasta u mahadcelinaynaa midowga safaaradda Ingiriiska UTM oo ah tababarayaasha ciidanka Yurubiyaanka oo mar walba la garab taagan taageero joogto ah wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa waana ka mahadcelinaynaa marka tababarkii noo soo socday muddada 16 maalmood maanta intaas uu nagu leeyahay xafladuna ay markaa tahay aad baan u salaam calaykum Fatxi Cabdullaahi Cabdi idaacadda codka ciidamada qalabka sida magaalada Muqdisho